madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa in uu u ambabaxo magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa casuumaad waxa uu ka helay dhigiisa dalka Masar Cabdilfataax al-Siisi, iyadoo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo arrimaha geeska Afrika. kulanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhigiisa dalka Masar Cabdilfataax al-Siisi ayaa ku soo aadaya xilli gobolka geeska Afrika ay ka jirto xiisad u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar, taas oo ka dhalatay qaybsiga biyaha webiga Nile. Itoobiya ayaa dhawaan sheegtay in ay bilaabayso xirista biyaha webiga Nile oo qayb ka mid ah koronto ay ka dhalinayso, taas oo Masar ay u aragto mid halis ku ah jiritaankeeda. sidoo kale Itoobiya ayaa dacwo ka ah Eritrea islamarkaana ku eedeysay in ay duulaan ay ku tahay dalkeeda. waxaa xusid mudan in xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya hoos loo dhigay kadib heshiiskii ka dhacay Ankara. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaya cadaadis uga imaanaya Addis Ababa iyo Qaahira, kaas oo uga baahan maareyn iyo go'aan qaadasho adag. dowladda Masar ayaa doonaysa in madaxweyne Xasan Sheekh uu dib u soo celiyo go'aanadii saddex geesoodka ahaa ee lagu gaaray Eritrea, kaas oo Itoobiya lagu gelinayay go'doon. dhanka kale waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya dowladaha Itoobiya iyo Eritrea. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh ku casuumay xaflad xariga looga jarayo biyo xireenka Itoobiya ay ka dhistay webiga Nile. Itoobiya ayaa khilaaf ku saabsan ka faa'iideysiga biyaha webiga Nile kala dhaxeeya Masar, waxaana khilaafka labada dal ka dhaxeeya uu u muuqdaa mid ku soo durkaya Soomaaliya. socdaalka Masar ee madaxweyne Xasan Sheekh ayaana ku soo beekmay xilli ay xukuumadda Qaahira si weyn u doonayso in Soomaaliya ay ka baaqsato xafladda xarig jarka biyo xireenka webiga Nile. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. howlgalka ayaa ciidamadu waxa ay ku beegsadeen xubno ka tirsan al-Shabaab, waxaana deegaanada howlgallada ay ka wadan ka mid ah Gumare, ceel Qooxle iyo deegaanka Mabax ee gobolka Hiiraan. howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye iyo taliyaha ururka saddexaad ee Duufaan, waxaana qayb uu ka yahay qorshe ballaaran oo lagu doonayo in al-Shabaab looga saaro deegaanada xadka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ku yaala. howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa kadib dagaal culus oo shalay Gumare ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo xubno ka tirsan al-Shabaab, waxaana saraakiishu ay sheegeen in howlgalka xubno badan oo ka tirsan al-Shabaab lagu dilay, haatanna deegaanadii ay shabaab ka joogeen laga saaray, islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka deegaanadaasi ay ku sugan yihiin. waxaana weli abaabul dagaal uu ka jira deegaanada gobolka Hiiraan, gaar ahaan xadka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, oo la doonayo in al-Shabaab deegaanadaasi laga saaro.